daawadaha sharafta leh cilmi nafsi ama psychology waa cilmiga barashada maskaxda iyo dabeecadaha dadka. aadanaha waa noole cajiib ah, aragtida wax ku qiimeeyo, jecel in la hadalhaayo, la buurbuuniyo, la amaano, qiimo loo yeelo, si gaarna dadka loogu dhex xushmeeyo. magacayga waa Jaabir Cusmaan JB, halkan waa Madasha Dhalinta Soomaaliyeed. ku soo dhawow xikmaso nagu soo biir follow soo dheh page-keena YouTube-keena, subscribe dhaho mahadsanid. halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa xeelado cilmi nafsi ah ee aad dadka ku hanan kartid kuna furan kartid qalbiyada dadka. nala sii joog ilaa dhamaadka. ku soo dhawow mawduuceena maanta. xeeladeyna koowaad, qof markaa la hadlayso dhowr jeer ku soo celceli magaciisa. ku dhawaaqida magaca qofka waa arrin laysku raacay, waa sixirka dareenka. qofkaasna weligiisa kuma ilaabi doono. markaa qof hadiyad siinayso, u muuji inay tahay hadiyad qiimo leh, sidii isaga keliyana ugu talagashay. u muuji sidii shay laga rabo inuu isaga keliya ogaado, yacnii shay qaas inay tahay hadiyadaas. qofka aad hadiyadda siisa wuxuu dareemayaa inay qiimo weyn leedahay. loolan tartan adag markaa ku jirto, buunbuuni naftaada inay umurahaaga tamaam yihiin, adigoo naftaada ku huwaayo maryo qayim iyo akhlaaq raacin inaad khayrka wado, shartana la dagaalamayso. cidda loolanka kula jirta ay tahay sharwadayaal lid ku ah dadka oo dhan, adigana dadka aad maslaxad la rabto. markaa wadahadal kula jirto dadka, maskax ahaan joog, xaadir ahaw, meelaha ha fiirfiirin, moobeelka ha ku mashquulin. u muuji cidaad la hadlayso, aad la tacaamulayso, inaad arrinkan si weyn u danaynayso, sida mawduuca inuu si gaar kuu quseeyo. qofkaas wuu ku ammaanayaa, wuuna ku aaminayaa wuxuu ahaadaba. daawade, waxaa jira luuqad cajiib ah oo lagu magacaabo luuqadda jirka. micnaheeda haddaan si fudud kugu dhigo, dhaqdhaqaaqa iyo ficilada jirka bini'aadanka sameeyo isagoo aan is ogeyn. midkaas oo ah waxa ugu badan ee qofka sameeyo. 55% oo ah waxa aan gudbino waxay ka imaadaan luuqadda jirka. 38% nooca codka. 7% ayaa keliya ka yimaado hadalkeena iyo wax aan gudbino. sidaa u ogaato u maamusho dadka, waa inaad aad uga fiirsataa, taxadar siisaa luuqadda jirka uu sameeyo qofka iyo nooca hadalkiisa. indhaha waa waxa koowaad aan soo qaadanayno, waa indhaha. indhaha cajaa'ib gaar ayay leeyihiin. waa meesha koowaad qofka aad ka ogaan karto waxyaabo badan oo shakhsiyadiisa ku saabsan. waxaa ka ogaan kartaa daacadnimada qofka, inuu run sheegayo, inuu been sheegayo. indhaha noocyo badan ayay wax u gudbiyaan, mid walbana wax gaar ayay ku tarjumaan. waxaana ka mid ah qofka oo ku eegi karin. haddii uu qofka indhaha kaa jeediyo, indhihiisa iyo kuwaaga oo kala ilaaliyo, arrinta waxaa loo fasirin karaa laba mid oo kale ah. kow, inuu yahay qof been kuu sheegayo, sidaa darteed uu kuu eegi karin. midda labaad oo ah inuu yahay qof wax kaa qarinayo, laakiin qofka kula wadaagi karin waxyaabaha uu kaa qarinayo. qofka wax uu kaa qarinayo waxaa ka mid ah inuu ku jecel yahay uuna kuu sheegan karin, iyo arrimo kale oo badan. haddii aad ku aragto calaamadahan, si taxadar u fiirso qofkaas. qofka oo indhaha kugu guba, midana waa lidka midii hore. haddii aad aragto qof indhaha aan kaa jeedin oo si xun kuu fiirinayo, waa qof isku daya inuu ku cabsi geliyo. haddii aad ku aragto arrinkan, isku day inaadan u jilcin oo aad ka yeelin cabsida uu kula rabo. qofka oo indhaha laablaaba, haddii uu qofka wada hadlaysaan aad aragto isagoo indhaha isku qabqabanayo, waa fariin cad oo ku tusayso in hadalkaaga qofka oo dhibsanayo. isku day inaad noqoto qof caqli leh oo isla markii joojiso hadalka qofkaas aad ku wado. dhoolacadaynta waxay gudbisaa dareenka qofka. dadka way dhoolacadeeyaan si ay ugu gudbiyaan ama ugu qariyaan dareenkooda iyo waxa ay ku fikirayaan. laakiin dhoolacadaynta ayaa laba kala ah, mid ay khiyaano la socoto iyo mid dhab ah. isku day inaadan ku kadsoomin dhoolacadaynta beenta ah. dhoolacadaynta dhabta ah waxay laalaab ku samaysaa agagaarka indhaha. daawada, si aad u xukunto qofka kaa soo horjeedo, ku hadal cod degan. haddii aad rabtid inaad ka guulaysato qofka aad iska soo horjeedaan ama dood idinka dhexayso, keliya codka hoos u dhig. taa waxay ka caawinaysaa inaad u muuqato qof kalsooni ku qabo naftiisa. sidoo kale kalsooni ku qabo waxa uu sheegayo. kalsoonidan ayaa kaa dhigaysa mid ka gacan sareeya qofka ay ishaayaan. marka aad rabtid inaad wax soo xasuusato, isku qabo indhaha. marka ay indhaha laaban yihiin waxay aad ugu fududahay marka ay indhahaaga furan yihiin, sababtoo ah markay indhahaaga laabto waxaa yaraanaya kashkhashaada laga yaabo inay kaa soo dhex galaan markaa isku dayayso inaad wax soo xasuusato. haddii aad rabto qof inuu wax ku siiyo, ugu horeyn waxaad weydiisataa wax uusan ku siin karin. markuu maya ku dhaho, kadib weydiiso wixii aad ka warrabtay inaad weydiisato, kadib wuu ku siin doonaa. meeqa mar ayuu tanoo kale soo aragnay noloshaada, xitaa yaraanteena. markii hooyo lacag weydiino ay maya nagu dhahdo, kadib mar kale waxaan samayn jirnay lacagtii ka yar ayaan weydiin jirnay, kadib wayna siin jirtay. qofka markuu ku siin waayo jawaab dhammaystiran ama aad dareento inuu been kuu sheegayo, aamus, indhihiisa keliya eeg 10 ilbiriqsiyo. cadaadis ayuu dareemi doonaa, wuxuuna u
umalayn doonaa inaad beenta ku fahantay markaas kadib jawaab dhammaystiran ayuu ku siin doonaa marka dad koox ah ay wada qoslayaan kaftanka uu qarxo qof kasta wuxuu eegi doonaa qofka uu aaminsan yahay ama qofka uu ka helo ma rabtaa qof inuu wax kuu sameeyo ku dheh ma samayn kartid waxaas qofka wuxuu samayn karo haddii lagu dhaho ma samayn kartid kibir dartiisa ayuu la samayn doonaa xitaa hadduusan rabin inuu kuu sameeyo mar qura un jooji hadalka si uu saamayn weyn u yeesho joojinta hadalkaaga wakhtiga ku habboon wuxuu kor u qaadayaa saamaynta hadalkaaga uu dadka ku leeyahay in ay dadka erayadaada ka fikirayaan oo ay saamayn ku yeeshaan haddii aad rabtid marka aad hadasho kadib aamus ha noqon qof keliya hadla oo iska talaarixiya hadalka qofka saas ah hadalkiisa saamayn ma yeesho markaa hadalka joojiso dadka waxay isweydiinayaan maxaad la aamustay daawade u aamus qofka si aad u hesho wax aad rabto haddii aad ugu baahato wax qofka ha isku dulayn aadna ha u baryin keliya u aamus qofka aad wax ka rabto iyagaa marka dambe hadli dooneen dadka uma adkaysan karaan aamusnaanta xaddhaafka ah waxaadna arki iyagoo isku dayaya inay aamusnaanta meesha ka saaraan isticmaal ereyga sababta oo ah marka aad qof wax weydiinayso isticmaal ereyga sababta oo ah ereyga sababtu ah wuxuu leeyahay saamayn weyn oo cilmi nafsi ah wuxuu ku qasbaa maskaxda inay rumaysato hadalkaaga dhibaato marka ay jirto haddii aad xal lagaa sugaayo haddii aad tahay aabe maamule mas-uul ama hogaamiye haddii xal lagaa sugaayo laakiin dhibaato jirto u muuji umuuraha inay sahlan yihiin wax walbana ay caadi yihiin xitaa haddii xaaladaha cakiran yihiin dadka waxay dareemayaan deganaan iyo in ay rajo jirto ha adeegsan kelmadaha waa macquul waan umalaynayaa waa laga yaabaa way ila tahay waa markaad rabto inaad saamayn ku yeelato dadka beddelka arrinkan adeegso kelmado go'an oo aad hubto sidii inaad xaqiiqda sheegayso xitaa dadka way ku qanci bini'aadamka ma jeclo hadallada labaclabacda iyo laalaabka ah daawada dadka way jecel yihiin kuna kalsoon yihiin qofka sumcadda wanaagsan leh waa inaa midaan ogaataa sumcadda waa cajiib mar walba ilaasho sumcaddaada haddii aad rabto qof inaad wax ku qanciso hubi qofkaas inuu gaajaysan yahay in kale dadka wax cuna caloosha u buuxdo waxaa sahlan in wax laga dhaadhiciyo daawada dadka ha u fiirin inay yihiin kuwa xun iyo kuwa fiican ee u fiiro kuwa faa'iido kugu soo kordhinayo iyo kuwa aan faa'iido kugu soo kordhinaynin mar walba u muuqo qof xikmad leh waxtar leh yacni isaga loo baahan yahay dadka ay u baahan yihiin gacmihiisna aan ku wasaqaynaynin afcaal xun iyo fadeexo weligaa ahaaw qof nadiif ah iska ilaali inaad u muuqato qof degdegsan degdegu wuxuu u muujinayaa inaad tahay qof jilicsan oo aan xakamayn karin nafsadiisa afcaashiisa u muuqo qof sabar leh degdegsanayn sidii inaad og tahay wax walba inay caadi ahaan doonaan sidoo kale adigoo isha ku haayo wakhtiga munaasabka ah si aad u qabato waxaas daawada weligaa ha u muujin inaad daciif tahay bini'aadamka ama mid labalabaynaayo inaad tahay isku kalsooneen dadka way yasaan qofka daciifka ah qofka baqaayo weligaa niyaddaada ha gashan daciif ayaa tahay dadka si naxariis leh ayay kuu fiirinayaan iska jir inaad isku muujiso qof daciif ah weligaa wax kasta oo dhaco waa shay fiican dadka inaad ku kalsoonaato laakiin waxaa fiican inaad 100% ugu kalsoonaan dadka mar walba digtoonow ahaw wax walba aad maqashane ha rumaysan adigoo hubsan bini'aadamka wax ugu badan oo xasuusto waa bilowga iyo dhammaadka tusaale wicitaanka taleefanka kelmadaha ugu dambeeyey qofka ayuu xasuustaa in badan dhaqdhaqaaqaaga oo qofka koobiyeeyo markuu qofka dhaqdhaqaaqaaga koobiyeeyo ma ahan qofka inuu kas u samaynayo ee waa wax ku imaaday qaab dabiici ah oo isaga oo is-ogeyn qofka waxaa jiita dhaqdhaqaaqaaga mana ahan wax mar walba iska dhaca waxay dhacdaa marxalad oo qofka sheekadaada iyo la joogaaga la dhacsan yahay haddii aad aragto inuu qofka ficiladaada koobiyeynayo taas waxay ku tusaysaa inuu qofka agtaada caajis ku dareemaynin ugu dambayn intaan haddaa nala soo gaartay waad ku mahadsan tahay wakhtigaaga quruxda badan aadna siisay haddii uu muuqaalkan ku cajibiyey laag saar si uu dad badan u gaaro la wadaag asxaabtaada oo sheer dheh intaan muuqaalkan lacin ah ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar